Waad asxaabta kusoo dhawaada barnaamijkeena on target oo aynu ku falanqeyno kulamada waaweyn ee la ciyaaray toddobaadka. Waxaan muuqaalkan ku eegi doonaa kulamada ugu muhiimsan ee la ciyaaray maanta oo ay ahayd maalin Sabti ah. Waxaana la ciyaaray kulamo kala duwan hadday noqoto horyaalka Ingiriiska ee Premier League, sidoo kale horyaalada kale ugu waaweyn qaaradda Yurub sida horyaalka Talyaaniga ee Serie A iyo Bundesliga ee wadanka Jarmalka. Haddaba kulamadii haddaynu ku horeyno kulanka ugu horeeyay ee ciyaartay kooxda Manchester City. kooxda Manchester City ayaa la ciyaartay ama waxay la ciyaaraysay kooxda Leicester City kadib markii ay kooxda Leicester City xilli ciyaareedka ku bilowday xilli ciyaareed xun ay bilowday oo kooxda kulamadii ugu horeeyay dhan ay awoodi weeday inay guuleysato ayaa kulamadii saddexdii kulan ee ugu dambeeyay kooxda Leicester City waxay awooday inay guulo gaadho sidoo kalena aan laga badin. sidoo kale Manchester City oo raadinaysay inay gasho ama kaalinta koobaad ay sii gasho ka hor intaanay ciyaarin maalinka bariyaha kooxda Arsenal ayaa iyaguna kulanka soo galay. oo kooxda Leicester City waxay kulanka ku soo galeen inay daafacdaan oo 10 ciyaartoy ee ciyaarayay kooxda ilaa ciyaartoyga Jamie Vardy isagoo weerarka ciyaarayay dhamaan ciyaartoydu ay wada daafacanayeen waxaa ciyaartoyga Jamie Vardy qaybta hore ee kulanka oo dhan waxa uu taabtay kubadda 2 ilaa 3 jeer kulanka si guudna waxa uu taabtay 7 ilaa 6 jeer oo markii dambena waa la saaray. oo kooxda Leicester City waxay ku ciyaaraysay kubadda inay daafacato xataa si xoog dhaaf ah ay u daafacanaysay oo mararka qaar ama bay awoodeen ama isku meedeeyeen inay kooxda Manchester City kontarata ku qaadaan oo ay gool ka soo dhaliyaan ama ay fursad soo abuuraan oo kubadda markay daafaca ku jiraan maanta dhan kooxda Leicester City kadib markii Manchester City isiraadaan weerar qaada oo dhexda khadka dhexe markay gaarsiiyaanba kubadda waa laga soo qaaday oo waa la weerartamay. oo Manchester City kubadda marka ay soo qabsato maanta fursado badan oo saas ay abuurin maadaama ay kooxda Leicester City ku ciyaaraysay 10 ilaa 12 ciyaartoy ama kooxda dhan ay wada daafacanayso oo xataa mararka qaar soo noqonay ciyaartoyga Vardy sidoo kalena uu kooxda ka maqnaa goolalihii kooxda Erling Haaland kaas oo ahaa ciyaartoyga kubadda loo soo baasay hadday noqoto kubadda crosska ciyaartoyga loo keenayay ama hadday noqoto ciyaartoyga boos qaadanayay ee ciyaartoyda kale siinayay meel bannaan tusaale ahaan oo kale marka uu kubadda baxo Haaland laba ciyaartoy ama hal ciyaartoy markay raacdaan ciyaartoygaas meesha ka soo dhaqaaqay ciyaartoyda khadka ayaa ka faa'iideysan jirtay balse Haaland oo aan maanta joogin sidoo kale Leicester City ay daafac badan ku ciyaaraysay ay Manchester City awooday inay fursado badan abuurto sidoo kalena ay goolal dhaliso. haddaba Manchester City inta kadib ama kulankii qaybtii dambe waxay awooday inay gool dhaliso ciyaartoyga Kevin De Bruyne ayaa goolkii koobaad u dhaliyay kooxda ama goolkii kulanka oo waxa uu ka dhaliyay gool free kick ah ama waxa uu ka dhaliyay foul oo kooxda Manchester City goolkaas ay dhalisay kulankii oo dhan waxaana awoodi weeday kooxda inay fursado badan abuurto oo waxa jiray inay xiriirka u dhaxeeyo ciyaartoyga Kevin De Bruyne iyo ciyaartoygii hore ka ciyaaray ama booskii Haaland ka ciyaaray Alvarez in la jaray oo ay aad u daafacanayso kooxda Leicester City. Manchester City ayaa hoggaanka hadda sii haysa ka hor intaanay ciyaarin kooxda Arsenal kulanka bari ah oo Arsenal ayaa bari la ciyaari doonta kooxda Nottingham Forest. dhinaca kale kulamadii kale la ciyaaray waxaa ka mid ah horyaalka Talyaaniga ee Serie A kooxda Napoli ayaa iyaduna 4 kaga badisay kooxda Sassuolo oo ciyaartoyga Victor Osimhen ayaa hat-trick u dhaliyay kooxda sidoo kale ciyaartoyga Kvaratskhelia oo ka mid ah xidigaha kooxda Napoli xilli ciyaareedkan ayaa isaguna gool dhaliyay oo ciyaartoyga Kvaratskhelia isagoo labadii gool ee hore waa caawiyay sidoo kale goolka saddexaad isaga ayaa dhaliyay. haddaba kooxda Napoli oo xilli ciyaareedkan soo bandhigtay mid aad u fiican hadday noqoto Champions League iyo hadday noqoto horyaalka Talyaaniga oo kooxda Napoli hadda waa kooxda ugu sareysa ama kooxda hoggaanka ee horyaalka Talyaaniga sidoo kalena weli lagama badin kooxda oo kulamada dhan ay ciyaartay kooxda Napoli xilli ciyaareedkan marka laga yimaado 2 kulan oo ay bareejo gashay horyaalka Talyaaniga kulamadii kale ee dhan waa ay badisay. haddaba Napoli ayaa si dheerisay hoggaanka oo kooxdu waxay hadda ku sii jirta ama horyaalka ayay sii haysay hoggaanka waxayna ku badisay 4-0. sidoo kale kooxda Bayern ayaa iyaduna ciyaartay horyaalkeeda Bundesliga waxayna kooxda Mainz kaga badisay 6-2 oo ciyaartoyga Sadio Mane ayaa isagoo 2 gool dhaliyay. kooxdu waxaa jiray in ciyaartoy badan ama ciyaartoy kala duwan ay goolasho u dhaliyeen oo talahaana kule ciyaartoyga Choupo-Moting ayaa isaguna boos qaadasho sameeyay oo kulamadii ugu dambeeyay ilaa 4 kulan ee ugu dambeeyay ciyaartoyga xataa marka lagu daro kulankii ay la ciyaareen kooxda Barcelona koobka Champions League ciyaartoyga Choupo-Moting waxa uu noqonay ciyaartoyga line-up-ka ah kadib markuu tababar Nagelsmann uu ku dawaqay ama uu awoodi waayay inuu ciyaartoyda garbaha ka ciyaaro oo mid ahaan ka ciyaarsiiyo lambar 9 been ah oo hal mar wada ciyaarsiiyo ciyaartoyda Gnabry, Coman, ama Sane iyo Sadio Mane waxaana hadda boos helay ciyaartoyga Choupo-Moting oo isagoo 4 kulan ee ugu dambeeyay dhaliyay. haddaba kooxda Bayern ayaa kaalinta koobaad sii qabatay horyaalkeeda oo 25 dhibcood ay haysay iyadoo 12 ciyaartay balse kooxda Union Berlin oo hal kulan u harsiin ama bari ciyaari doonta ayaa iyadoo 23 dhibcood leh oo hadday bariso kooxda Union Berlin bari hadday badiso kulankeeda waxay ku soo laaban doontaa hoggaanka horyaalka Bundesliga. sidoo kale kulamadii la ciyaaray waxaa ka mid ah kooxda Chelsea ayaa 4-1 lagaga badiyay oo kooxda Chelsea waxaa ka badiyay ama tababaraha kooxda Chelsea ee Graham Potter waxaa ka badisay kooxda Brighton. kooxda Brighton waxay ka mid ahayd kooxo ugu fiicnaa labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay horyaalka Ingiriiska ee Premier League hadday noqoto qaabka ay u ciyaarayso kubadda iyo hadday noqoto afkaarta iyo sida ay u ciyaarayso kooxdu.
haddaba kooxdu waxaa jirtay kooxda Chelsea kulanku marka uu sidaa u bilaabmay inay kooxda Chelsea khaladaad sameysay 15 daqiiqo ugu horeeyay taasoo kooxda ku kaliftay in 2 gool laga dhaliyo 15 daqiiqo ugu horeeyay kulanka oo tusaalahaan oo kale 2 kulan waxaa jirtay 2 khalad oo bilowgii kulanka uu sameeyay ciyaartoyga Thiago Silva balse uu awooday ciyaartoyga inuu goosha ka soo badbaadiyo labadiiba oo kubad waxaa jirtay golwada Kepa laga dul qaaday kadibna uu Thiago Silva madax kaga saaray sidoo kale waxaa jirtay isla fursad kale oo ay kooxda Chelsea khalad sameeyeen inta kadib ay koorne heleen kooxda Brighton koornahana kubad waxaa jiray uu ciyaartoyga Caicedo oo banaanka ka soo laaday taasoo soo dhaaftay daafac iyo dhammaan golwadaha kooxda Chelsea balse uu ciyaartoyga Thiago Silva awooday inuu madax kaga saaro kubadaas oo uu badbaadiyo goolka laakiin Brighton labada fursadood markii laga badbaadiyay sidoo kale ay sii socotay khaladaadka ay sameeyeen kooxda Chelsea waxa laga dhaliyay daqiiqadii 6 ama daqiiqadii 5 ayaa laga dhaliyay goolkii koobaad ee kulanka waxaana ka dhaliyay ciyaartoyga Trossard inta kadib kooxda waxay awooday Brighton inay goolka labaad dhaliso oo khalad kale ay sameysay kooxda Chelsea daafacyada ay dhaliso waxaana iska dhaliyay ciyaartoyga Loftus-Cheek haddana qaybtii labaad ee kulanku markii intaanu qaybta hore ee kulanka daqiiqadii 3 ee 42 waxay dhaliyeen goolka saddexaad waxaana iska dhaliyay ciyaartoyga Chalobah Chelsea ayaa isku dayday inay kulanka ku soo laabato oo qaybtii dambe ee kulanka bilowgiisa waxay la timi gool koobaad balse way sii socotay kulanka oo 3-1 ayay ku socotay way awoodi weyday Chelsea inay dhaliso gool labaad waxaana daqiiqadii 90 ka dhaliyeen kooxda Brighton goolkii afraad kooxda Chelsea hadda waxay ka baxday ama marka hore iyadoo ku jirtay kaalinta afraad ee horyaalka Ingiriiska Premier League hadda kooxdu waxa uu dhaadhacday kaalinta shanaad waxaana ka soo kormartay kooxda Newcastle United oo 24 dhibcood leh halka ay kooxda Chelsea 22 dhibcood ka leedahay sidoo kale waxaa dhici karta Manchester United maadaama ay bari ciyaarayso kulankeeda ay hal match ka yartahay ama hal kulan ay ka yartahay kooxda Chelsea waxa suuragal ah ama waxa la filayaa haddii Manchester United ka badiso kooxda ama kulanka bari ciyaarayso haddii ay badiso Manchester United waxay soo gali doontaa kaalinta shanaad oo Chelsea waxa uu dhaadhici doontaa kaalinta lixaad ay gali doontaa kadib markii ay kooxda Chelsea kulanka ugu dambeeyay kooxda Brighton laga badiyay sidoo kale kulankii kan ka horeeyay ay bari la gashay kooxda Manchester United kooxda Tottenham ayaa iyaguna la ciyaaray kooxda Bournemouth oo Tottenham waxaa jirtay kulanka inaanay soo galin si toos ah ama sidii looga baahnaa inaanay u soo galin taasoo keentay in kooxda Bournemouth ay 2 gool la hormaraan inta kadib ay kubadda isku dayaan inay bareejo keenaan kooxda Tottenham oo ciyaartoyga Moore ayaa 2 gool ka dhaliyay kooxda Tottenham qaybta hore ee kulanka iyo qaybta dambe bilowga qaybta dambe ee kulanka balse Tottenham ayaa awooday inay kulanka ku soo laabato oo daqiiqadii 18aad ciyaartoyga Sessegnon ayaa dhaliyay goolka koobaad sidoo kale Ben Davies ayaa isaguna gool labaad dhaliyay oo 2 goolka saddexaad iyo goolka labaadba waxay ka yimaadeen corner oo kooxda Tottenham ciyaartoyga Ben Davies madax ay u dhaliyay inta kadib Tottenham waa isku diiday inay matchka ku soo laabato oo fursado ay abuurtay waxaana ku guuleysatay ugu dambeyntii daqiiqadii 9aad inay la yimaadaan goolka badiska oo ciyaartoyga Bentancur ayaa u dhaliyay kooxda Tottenham haddaba soo laabashadan iyo 3 dhibcood ay soo qaadatay kooxdu waxaa la filayaa ama waxaa suuragal ah inay bedeli doonto xilli ciyaareedka kooxda oo ay u bedeli doonto ama ay ka dhigto kooxaha u tartamaya horyaalka Ingiriiska sidoo kalena waxay ka bedeli doonto xaaladda kooxda ee koobka Champions League horyaalka La Liga kooxda Atletico Madrid ayaa laga badiyay oo kooxda Qadish ayaa 3-2 kaga badisay oo bilowgii markii ciyaartu soo bilaabatay kooxda Qadish daqiiqadii ugu horeysay ayaa gool laga dhaliyay kooxda Atletico Madrid hal eber ayuu ahaa kulanka oo dhan balse markii la gaaray 10 daqiiqo ugu dambeeyay labada kooxood waxay iska dhaliyeen 4 gool oo ciyaartoyga Alex Fernandez ayaa daqiiqadii 8aad iyo koobaad ka dhaliyay goolka labaad waxaana noqotay ciyaartu 2-1 Joao Felix ayaa isagoo goolkii koobaad keenay oo 2-1 ka dhigay inta kadib Joao Felix daqiiqadii 9aad ayuu gool dhaliyay oo 2-2 ay noqotay balse goolka markii uu dhaliyay ciyaartoyga Joao Felix isla markiiba waxaa si toos ah looga dhaliyay goolka saddexaad ugu dambeyntiina kulankii la ciyaaray ayaa ahaa kulanka ciyaartay kooxda PSG waxayna la ciyaartay kooxda Torres oo PSG waxay ku badisay 4-3 inkastoo kooxda PSG laba jeer laga hormaray haddana kooxdu ismay dhibin oo ay soo laabatay oo PSG daqiiqadii ugu horeeyay 5 daqiiqo ugu horeeyay waxa laga hormaray gool ama goolkii koobaad ee laga dhaliyay inta kadib kooxdu waxay soo laabatay daqiiqadii 25aad ciyaartoyga Soler ayaa ka dhaliyay isla ciyaartoyga gool koobaad ka dhaliyay ayaa soo laabtay oo isaguna ka dhaliyay goolka labaad oo 2-1 ay noqotay balse PSG ismay dhibin oo 3 daqiiqo ka bacdi kooxdu waxay la yimaadeen goolkii bareejaha oo ciyaartu waxay noqotay 2-2 waxaana dhaliyay ciyaartoyga Lionel Messi inta kadib kooxda PSG toos ay u soo galeen matchka oo waxay la yimaadeen goolkii saddexaad oo u dhaliyay ciyaartoyga Neymar kadib markii uu caawimaad fiican siiyay ciyaartoyga Lionel Messi inta kadib ciyaartoyga Kylian Mbappe ayaa isaguna rogoore dhaliyay oo kulanka waxa uu ka dhigay 4-2 balse kooxda Troyes ismay dhibin oo daqiiqadii 8aad waxay la yimaadeen goolkii saddexaad ee kulanka waxaana kulanku ku soo dhamaaday 4-3 oo kooxda PSG ayaa hoggaankiisa dheersatay horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 kadib markii ay badisay kulankan caawa oo PSG hadda waxay ku haysaa 5 dhibcood balse kooxaha kaalmaha saddexaad ilaa kaalmaha afraad ku jira ayaa ah kooxihii aan looga baran inay kaalmaha soo galaan
haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar subscribe na dheh channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe.